shahwadaada hoos usoo dhacaysaa oo qof stable degan noqonaysaa hadaad awoodana inaad guursato hatta rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkiin haduu jidka maraayo oo uu dumarka kale maxay ahayd uu wax ka dareemo u arko gurigiisa aad u xaaskiisa ku ordo gabadhan kale wuxuu ka dareemo xaaskiisa kana way leedahay marka hatta taas waxa hatta asoo banaanka joogo haduu qofku baahi guur dareemo ama baahi gogol u dareemo inuu gurigiisa ku cararo isla markii reerkiisu aado oo la dhaqmo wax mid banaanka joogto uu shaydaanka u qurxitan xaaskiisa guriga joogtana way leedahay marka taasna waxa islaamka irid kasto oo zinada keenaysa wuu xiray bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh marhaba bil jamii dhamaan walaalaha waa salaam markasta joogtaan waa darsi muhiim ah oo dhalinyarada ku saabsan oo maxay ahayd bariyahan aad u soo badanaya oo jinsiga waxa loo yaqaan sexiska azina quraanka toos wuxuu u cabiray Allah subhanahu wa ta'ala azina waa qofkii oo xaraan ku dhaco oo gogol xaraana qof kale la wadaago rag iyo dumar yaa zina la yiraahdaa marka maxay keenaysaa marka zinada waxay kamid tahay daruuriyatul khamsa waxyaabaha shariicada ilaalisay oo qofka bani aadamka laga xarimay xifdu nafsi ay soo hoosgalaysaa shan shay oo waxa jirto islaamku ilaaliyay xifdu diin qofka inuu diintiisa ilaashado oo diin islaam ah uusan galin xifdu nafta in la dilo xaraan tahay zinada maxay xifdu nasli ay soo hoosgalaysaa afwan faraca bani aadamka in la ilaaliyo oo qofka markuu farcamayo oo inuu wax dhalo uu rabo dariiqo shariicada u sameeyay nikaax guur inuu galo oo guursado oo maxay ahayd aqdi uu galo meher sameeyo ka bacdi labadii qofood la isku mehriyo marqaatiya loo sameeyo dadkina ay og yihiin in labada qofood si xalaal ah isu guursadeen oo markaas faraciisi markaas qofka waa hebel in hebelaya guursaday waa cunugan in hebelaa dhalay hebelaya dhashay marka islaamku wuxuu kala ilaalinayaa nasabka bani aadamka inuu is dhex galin oo isku dhex yaacin saasa marka loo sameeyay cagsigeeda marka qofkii maxay ahayd haduusan guursanin oo xaraanta galo marka taas maxaa ka dhalanaysa marka koow shariicada islaamka oo khilaaftay oo zinada waxay ku jirtaa kabaa'irta dambiyada waaweyn ku jirtaa waxayna inta badan ku dhaco oo galo zinada galo waxa waaye dadka waa maxay ahayd da'yartay soo koray qofkii guurka ku adkaado ama guurka maxay ahayd uu xamil maxay ahayd uu sugu waayo uu sabri waayo ama dhaqaalo ku guursado uu waayo ama asbaabihi zinada ku dhici lahayd ay ku hareereysan tahay markaas oo markay keenan qofkii inuu zina ku dhaco Allah subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlayay wuxuu dhahay wala taqrabu zina innahu kana faaxishatan wa maqtan wa sa'a sabila waxay noqon faaxisho xumaan mid ugu xumeeda oo dambiyada dadka halaagay ku jirta zinada ku jirta markaas hadana marin xun ee qofka oo cuduro ku dhacayso oo fadeexa ku dhacayso oo iimaankii qalbigiisa laga siimayo la yazni zani حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن qofkii ma zina iimaanka markuu zinada ku dhacayo qalbigiisa laga bixinayo malaa'ikta ka bixinaysa idan maxaa keenaysa marka adrar fara badan ay keenaysa oo marka keenaysa zinadii marka wala taqrabu Allah ha u dhawaanina wala tafcalu ilaahay ma dhihin wala tafcalu wala taqrabu luqa ahaan way kala duwan tahay wala tafcalu markii la dhihi lahaa ha sameeynin bas laakiin taqrabu waxa ka culimadu waxay kala dhaxbeen kullu baab yuaddi ila fath baab zina inaad ka fogaato tabtacid wastajtanib wa irid kasto ku keeni karto inaad zina ku dhacdo marka inaad ka fogaato maxaa kamid ah shan shay fa nadaratun fiirmada faraha badan shariicadu way diiday quraanka ilaahay wuxuu amray qul lil mu'minina yaghuddu min absaarihim indihina laaba dadka mu'miniinta hadana gabdhiya la hadlay qul lil mu'minati yaghuddu min absaarihin marka waxa laga bilaabay fa nadaratun marka indhahaada inay hoos fiiriyaan markaad soconayso markaad tasarrufayso inaadan noqon qof indhaha waxay hadaa rag tahayna aadan gabdhaha ku taagin indhaha ku taagan hadaa gabar tahayna ragga indhaha aad ku taagan oo qofka inuu barto inuu indhihiisa laabo maxaa ka dhalanayso iimaan fara badan ka dhalanayso qalbigiisa inuu nuura ka dhalanayso ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu jacayl ka dhalanayso marka albaabkii zinada waxa laga bilaabay qaddu nadar indhaha alaafto labadaba rag iyo dumarba quraanku amray maxaa ku xiga fa kalaamun hadalada jilicsan gaar ahaan gabdhaha oo markay ninkii hadal jilicsan kulato marka oo ninkii dareenkiisa isbedelo oo marka maxay ahayd oo shahwadiisa ay kacdo oo ayada damac ka galo marka quraanka noo fala taqda'na bil qawli fayadma' alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa hajil'inina hadal jilicsan oo softi ha kula hadlin nin aan ku qabin ha kula hadlin si macruuf marka wada tacaamuleysaan marka wax kala gadanaysaan marka wada shaqeynaysaan si caadi ah normal hadal qof caadi ku normal ina qof kula hadashid laakiin hadaa hadal jilicsan kula hadashid hadalada jilicsan dadka isqaba iska leh
dadka iskale maxay ahayto hadalka raqiiqa ah oo jilicsan inuu ninka xaaskiisa kula hadlo gabadha ninkeeda kula hadasho taasha dadka isqaba ee khaas u tahay laakiin dadka aan isqabin inay si xushmad la iskula hadlaan oo ilaahay wuxuu waqulu linnaasi husnan si wanaagsan iskula hadla si wanaagsan dadka ula hadla marka idan hadalka wan jilicsan oo maxay ahayto keeni kara in labadan qof damac kala galo oo xaraan ku dhacaan idan shariicada way xirmay fanadratun fa kalaamun balan in meel lagu wada dhigto meel maxay ahayto oo meel inta lagu kulmo nin ina kaligood meel ku kulmaan taana waxa ka dhalaysa labada qof inay xaraan ku dhacaan marka faftisaam dhoola cadeyn been oo marka labada qofood ay gabadha ninka kusoo jiidanayso taasna gabdhaha u badan oo marka qof nin aan ku qabin maanta hadaa u dhoola cadeysid qofki damaca galaayo ay xaraan indhiisi maxay ahayto marka dareenkiisa xaggaada usoo jeesanaya qof marka noqo marka dhoola cadeynta shariicada way amartay qofka dalaaqatu wajhi inuu leeyahay oo bulshada u dabeecad furan yahay oo u qalbi furan yahay oo qof waji furan uu yahay oo qof maxay ahayto dhoola cadeys fiican uu yahay laakiin waa dadkoo dhan si gaar qof nin gaar ha ula dhoola cadeyn oo marka qofkii damac uu soo galo marka uu damac soo galo marka taasna shariicada way diiday marka shariicada marka zinada lagu diiday maxaa lagu amray guur baa lagu amray nabiga calaysalaam wuxuu dhahay yaa macshara shabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj qofkii guur awoodo takaaliifta guurka awoodo aydan taas waxaa bulshadeena maxay ahayto inaan qofka nabigu uu dhahay idan maxay ahayto man jaa qoyska marka idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuhu hadduu idin yimaado qof akhlaaqdiisa diintiisa ku qanacdaan u guuriya markastoo guurka bato xaaraanta way yaraanaysa markastoo guurka adkaado oo maxay dhaqaalihii iyo qofku ku guursan la waayo aydan waxaa ka dhalanayso in maxay ahayto xaaraanta ay faafto waana midda maanta taagan oo marka gaar ahaan ummadihii Soomaalida markay ummadihii kala dhex galeen waxay noqday successkii uu ku batay dhalinyaradii ku batay bal hadda baraha bulshada waxaa soo galay dad ka sheekeynaya gabdho ka sheekeynaya iyadoo qaawan oo saan ula dhaqan oo saan samee dhayso oo ayada lafteeda tumanayso oo sheegayso marka maxay ahayto qaabkii maxay ahayto xaaraanta loo sameyn lahaa taasna waxaa keentay guurkii oo aan ugu yaraaday oo da'yarta ku yaraaday asbaabaha keeni karo marka noqoto in yaa macshara shabaab man istadaa qofka intuu yar yahay dareenkiisa waa xoog waa fuul rasuulku wuxuu amar ku bixiyay inuu guursado qofka awoodina maxaa laga rabaa fa calayhi bisawm inuu soomaa laga rabaa oo marka soomki wuxuu noqonayaa wijaa-un maxay dhufaan wuxuu noqonayaa cafiifnimo qofka inuu dhowrsanaado isniin iyo khamiis inaad soonto bishii 3 beri ka soonto shahwadaada hoos usoo dhacaysaa oo qof stable deganaa noqonaysaa haddaad awoodana inaad guursato xataa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofkiin hadduu jidka maraayo oo uu dumarka kale maxay ahayto inta wax ka dareemo uu arko gurigiisa aad u xaaskiisa ku ordo gabadhan kale wuxuu ka dareemo xaaskiisa kana way leedahay marka xataa taas waxa la xataa asoo banaanka joogo hadduu qofka baahi guur dareemo ama baahi gogol u dareemo inuu gurigiisa ku cararo isla markii reerkiisa u aado oo la dhaqmo wax mid banaanka joogto uu shaydaanka u qurxiyo tan xaaskiisa guriga joogtana way leedahay marka taasna waxa islaamka irid kasto oo zinada keenaysa uu xiray noqono guurkeena mid uu sahlan yahay oo si sahal dadka xalaal ah la isugu guuriyo oo maxay ahayd waxyaabaha guurka hortaagan ee shaqo la'aanta ugu horeyso in laga hortago oo bulsho kasta oo magaalo kasta Soomaaliya hadii xirfad dhalinyarada la maalgeliyo oo fursadaha shaqo dhalinyarada loo badiyo oo xirfadaha ku shaqeystaan loo sameeyo guurka uu badanaya marka bulshadana way farcamaysaa way tarmaysaa siinadana way yaraanaysaa marka waxaa jiro waxyaabo ka dhalan kara cawaaqib xumo ka dhalan karto qofka hadduu zinada joogto ka dhigto uu zina barto oo marka noloshiisa dhan keeni karto inay baaba'do maxay una dhaxlo cawaaqib iyo mashaakil fara badan noloshiisa la soconayso ilaa maadaama xaaraan weyn oo ilaahay uu diiday uu ku dhacay waxaa ku dhacay qofkii markay mashaakil nafsiya qof shakhsiyadiisa dhimatay oo ku furan yahay buu ku furan yahay noqonaya oo qof aan xasilooneen buu noqonaya ilaa xaaraan buu wax ka raadiyay oo xaaraanti meesha xalka guurka qofka guurka ku xasilaayo haddii maxay ahayd uu zinada barto xasilooni kama qaadayo wareer uu ka qaadaya maxay ahayd wuxuu ka qaadaa stress fara badan ka qaadaya maxay ahayd raaxo la'aan oo nafsadiisa deganaansho la'aan iyo xasilooni la'aan yuu ka qaadaya maxaa dhaxal siiyay zinada dhaxal siisay waxaa kaloo xataa la sheegay hadduu xataa guursado xataa qofka waxaa la sheegay mararka qaarkood inuu dareenka ka guuro marka naftiisa baratay dareen xaaraan ay baratay ayadana waxyaabaha zinada ka dhalanaya yaa la sheegay amraad nafsiya xanuuno cudurro AIDS ka dhalanaya maxay ahayd waxaa ka dhalanaya sexual disease cudurrada galmada lagu kala qaada ka dhalanayso oo qofkii uu qaadayo amraad tanaasuriya farci ilmo la awlaad waxaa ka dhalanayso awlaad maxay ahayd farac la'aan oo meel ku abtirsanayaan aan jirin oo meel loo raacsiinaa aan jirin oo nasab lahayn ka dhalanayso zinada ka dhalanayso waxaa ka dhalanaysa sidoo kale dhaqaale xumo mashaakil istaqaaji oo qofka hadduu zina barto ma shaqaysto noqonaya
wuxuu noqonayaa qof aan mas-uuliyad diyaar u ahayn, qof inuu aabo noqdo diyaar u ahayn, qof inuu xaas noqdo diyaar u ahayn, qof inuu wax koriyo oo reer inuu sameeyo oo maxay ahayd dhaqaale abuuro oo wax koriyo oo wax tarbiyeeyo eberka markaa bulshada farceeda dabar go-aysaa way dabar go-aysaa oo ma noqonayo qof wax soo saar lama noqonayo qofka hadduu zina barto sidoo kaleenta raqbadii rabitaankii xalaasha ka baaba-ayso rabitaankii xalaal qof wax ku raadin lahaa ayadana way dhimanaysaa marka dambena wuxuu noqonayaa qof nolosha ka dhacsan oo shaada mambuud ah oo gooni maxay ahayto bulshada ka dhacay noqonayo nolosha ka dhacay marka ilaah baan ka magan galnay inuu naga dhigo dad dhowrsoon oo cafiifiina oo maxay ahayto xaaraanta ka fogaado irid kastoo keeni karta xaaraantana laga dheeraado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. خلاص توفيق الله نوافجين.